الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله جل وعلا أيامها تسكله نقد لقيدة مسلمين هذا نقد لقي أمتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة waxaan naga hadli doonaa إن شاء الله تعالى كلمة رمضان ereygaas رمضان ayaan kaga hadli doonaa إن شاء الله. kelimadaas ramadaan culummadu waxay yidhaahdaan waa 5 xaraf: alraa'u walmiimu waldaadu walalifu wannuun. ramadaan waa 5 xaraf. waxay yidhaahdaan marka alraa'u min ramadaana raxma, ra'da waa naxriis. walmiimu makfira, miimkana waa dembi dhaaf. والضاد ضمان للجنة، ضاد كان وضمان جنة لغو ضمانيو. الله أكبر. والألف أمان من العذاب، ألف كان وحد كان بتجلس عذاب. والنون نور من العزيز الغفار. الله، نون كان ونور إلهي حقي سكاء هذا تبارك وتعالى. أنكو علنه الراء رحمة، رأد ونحريس. والميم مغفرة، ميم كان وادم بداف. والضاد ضمان للجنة، ضاد كوحوكو ضمان يا جنة. والألف أمان من العذاب، ألف كان وحوكان بتقلن يا عذاب. والنون نور من العزيز الغفار، نون كان ونور إلهي حقي سكاء هذه تبارك وتعالى. ereygaas ramadaan oo ilaahay qur'aanka ku sheegay tabaaraka wa tacaala uu yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan. ereygaas marka shahru ramadaana oo ilaahay qur'aanka uu ku xusay tabaaraka wa tacaala, culummadu waxay yidhaahdaan mushtaqun min alramdi waalramdaa'i, waxaa laga soo ishtiqaaqay xagga sarfiga oo laga soo dhambashay ramdi iyo ramdaa. walramdu walramdaau waxaa la yidhaahdaa shiddatu xaraarati shams, qoraxda kuleylkeedii darnaantiisa ayaa la yidhaahdaa. qoraxda kuleylkeedii darnaantiisa. fii saxiixi muslim ayaa waxaa ku sugan in nabigeeni sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu yidhi: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، محل شاهد كان ترمض من الرمض. صلاة الأوابين حديث معنيه سهدان أركنه. صلاة الأوابين كوا نقشد بدن ومرول بإله ونقنا يا تبارك وتعالى. صلاة دودي يعني صلاة الضحى وياane salaad duxada waxaa dugto oo mar walba ilaaliya dadka mar walba ilaahay u laawashada badan. maxaa yeelay dadka markay adduunyo ay ku mashquulsan yihiin ayaga ilaahay bay u soo laabanayaan, ganacsigooday ka soo dhexbaxayaan, ilaahay bay xusuusanayaan, allah ayay xusayaan tabaaraka wa tacaala. maxaa ka wanaag badan oo ka macaan badan dadka markay ku dhex mashquulsan yihiin adduunyadoodii adigana allah aad xasuusato, labadoo rakac aad dukato, ilaahay baad u laawatay subxaanahu wa tacaala. salaatu lawaabiina kuwa laawashada badan ee noqoshada badan oo hadda iyo jeer allah u laawanayaan tabaaraka wa tacaala salaadoodii. xiina tarmadu lfisaal, xiina goortii weeyaan tarmadu lfisaalu, nirgaha yaryar ay cagaha ka gubanayaan. fisaalka waxaa weeyaan nirgaha, nirigta waxaa la yidhaahdaa geela yaryar.
geela yaryaroo ma arkaysaa markaasay dhashay cagahoodii bacaadka kuleelkiisa aysan ku socon karin oo hadday ku socdaan cagahoodii ay gubanayso, kuwaasaa la yidhahdaa fisaal. marka nirgaha yaryar markay lugaha ay ka gubanayaan xilligaas weeyaan salaada duxada dukashadeedii. bimacnaa qoraxda markay kululaato ay dukanayaan salaatu duxa 4 saac 5 saac meelahaas oo kale, ama qaar waxay u yaqaanaan 10kii ama 5tii oo ma arkaysaa duxada xilliga barqada ah, xilliga qoraxda aad u kululaato. marka maxalu shaahidkeena waa maxay? tarmad waa markay gubanayaan weeye. bimacnaa waxa waaye marka ramadaan maadaama min alramdi walramdaa uu ka yimid, waxa weeyaan dadka soomayo bisha ramadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyadoodii ayuu gubayaa, dembiyadoodii ayuu dhaqayaa, dembiyadoodii ayuu dhaafayaa, dembiyadoodii ayuu tirtirayaa. lima fiihi min sacati raxmati callaami lguyuubi jala jalaaluh. ilaahay raxmadiisa waasacnimadeedii ayaa meeshaasayti ku sugan. waxaa lagama maarmaana qofka mar walba cibaadada inuu ilaaliyo. ramadaanka uu soomayo sidii loogu talagalay inuu u soomo, si soonkiisa uu u noqdo mid dembiyadiisa lagu gubayo. ilaa dembigaagii haddii la gubo wuu baaba-ay sooma, dembigaagii waa la gubay, waa dhammaaday, khalaas dembi meesha kuuma yaalo. dembi dhaafaad leedahayoo ilaahay baa dembiyadaadii kuu dhaafay. ramadaan waxaa kaloo la yidhaahdaa matarun yanzilu calaa wajhi alard, roob oo samada ka soo dego dhulka ku da-ayo weeyaan. bimacnaa maxaa laga wadaa? kamaa yagsilu hada almataru gubaara alardi kadalika yagsilu ramadaanu dunuuba asaa'imiin. maadaama ramadaan qaar ay ku macneeyaan roob samada ka soo degayo ama biyo soo degayo uu yahay, biyahaasi dhulka uu u nadiifinayo, dhulka boorkiisa uu u tirtirayo, saasoo kale bisha ramadaan wuxuu dhaqayaa, uu tirtirayaa, uu nadiifinayaa dadka sooman dembiyadoodii. allahu akbar. ereyga ramadaan marka micnaha uu ku fadhiyo bal fiiriyo walaalayaal. micnahaas weyn maadaama uu xambaarsan yahay, in la beerdareeyo ma aha, in lagu ciyaaro ma aha, in la dayaco ma aha. dad baa waxaad arkaysaa iska dayacayaan, ma arkaysaa agtoodii qiimoba aan ku lahayn. qaarkoodii musalsalaad ayaa loogu talagalaa, ilaan gaalada waa cadow. waxay diidayaan muslimiinta meelaha dembi dhaaf ay ku heli karaan inay ka faa'iidaystaan bay u diidayaan. 6 bilood ka hor ayaa waxaa hadda lagu diyaariyey musalsal oo la daari doono ama la shidi doono bisha ramadaan. dad baa marka waxay ku maman yihiin ama ay ku dhexmaashoonayaan musalsalaadkaas inay daawadaan. aaway marka goormuu ka faa'iidaysanayaa qofka? ramadaan goormuu ka faa'iidaysanayaa? kama faa'iidaysan karo. ilaahi sidee ayuu dembigaagi u dhaafayaa wa anta ghaariqun fi hadihi almusalsalaat, adigoo ku dhexmaashoonayo musalsalaadkaas aragtidiisa ama daawashadiisa. ilaahay wuxuu kuu dhaafayaa markaad u laabatid subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay aad u noqotid subxaanahu wa tacaala, aad isku dulaysid tabaaraka wa tacaala. ilaahay markaasuu kuu dhaafayaa. laakiin bil ramadaan ayadoo lagu jiro, mawsimu lmaqfira ayadoo lagu jiro, mawsimu lcidqi min annaar ayadoo lagu jiro, mawsimu raxma ayadoo lagu jiro, mawsimkii dembiga la dhaafayey, mawsimkii lagu naxariisanayey, mawsimkii naarta lagaa xureynayey, haddaad ka faa'iidaysan weysid, goormeed ka faa'iidaysanaysaa bisha ramadaan? goormee ayuu ilaahay kuu naxariisanayaa? goormee ayuu ilaahay kuu dhaafayaa dembigaagii? goormee ayuu ilaahay naarta kaa xureynayaa subxaanahu wa tacaala? kolka waxa weye walaalayaal, nafteydii naftiina waxaan isku dhiirigelinaynaa ilaahay inuu nagu daro kuwa loo naxariisanayo, kuwa loo dembi dhaafayo, kuwa naarta laga xureynayo. ilaahay inuu nagu daro ayaan weydiisanaynaa. marka aan ka wada faa'iidaysano bisha ramadaan ee barakaysan walaalayaal. maxaa yeelay culummadu waxay yidhaahdaan qofka waxaa ka faa'iidaysan karo bisha ramadaan qofka rajab wax beeray, shacbaanna waraawiyey, ramadaan wuu guranayaa, bis wuu goosanayaa. marka bisha ramadaan rajab aad inaa adiga towbadkeenka ku dadaashid, shacbaan oo kaleeta inaad sii badisid khayraadka si adhow aad ola qabsatid bisha ramadaan. allahna waafajiyo.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.